Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta oo aan ku baranayno types of reinforced concrete beams. Okay, muuqaalka hore waxaan ku baranay waa maxay reinforced concrete beam. Okay, balse muuqaalkan waxaan ku baranaynaa ama aan isla arkaynaa noocyo kala duwan oo beams ah. Noocyadaas waxaan u samayn doonaa parts kala duwan, part 1, part 2 oo kale ayaan u samayn doonaa. Noocyadaas marka aan u kala qaybinayno waxay ku xiran tahay hadba xaalad gooni ah ayaan ka fiirinaa, hadba dhinac ayaan ka fiirinaa. Insha Allah nooca ugu horeeya marka muuqaalkeena aan kusoo qaadanayno waxa uu ku base garaysan yahay ama type-ka aan ka hadlayno waxa uu ku base garaysan yahay support condition. Supportayaasha haya nooca ay yihiin anagoo fiirinayna ayaan typeskooda isla arkaynaa. Nooca ugu horeeya marka waxa uu noqonayaa simply supported beam. Okay, simply supported beam marka maxaa uu yahay? Waa beam ka kooban lagu dhahay single span. Okay, tusaale ahaan beamkeena waa kanaha. Okay, meeshaan supportaha ka hayo. Okay, intana supporto kale ayaa ka hayo. So markii length-ka hadda dhirirkiisa waa hal dhirir waa. Okay, length-kaas marka oo support u dhaxeeyo ayaa waxaan u naqaanaa span. Okay, so marka waa single span. Horta taas u fahan wuxuu ka kooban yahay single span waxaana support gareeyay ayuu ku leeyahay two supports. Okay, at both of the ends. Okay, labada dhinac oo beamkeena mid dhinaca uu ka bilaabanayo iyo dhinaca uu ku dhamaanayo waxaa ka support gareeya laba support. Okay, laakiin wuxuu firi u yahay inuu rotate sameeyo oo rotate-ka iska celin karo. Tusaale ahaan marka maxaa laga wadaa hadda sawir isla arkaynaa. Okay, simply supported waa noocan waa yacni laba dhinaca laga hayaa. Okay, waa single span waa isla fahanay. Okay, so marka labada dhinac waxay noqon karaan beamed dhinac ayuu noqonaa dhinacna wuxuu noqonaa roller. Okay, so markaan oo kale maxaa waaye supportahan ma ogola shaygan inuu vertical u dhaqaaqo sidoo kale ma ogola inuu horizontal u dhaqaaqo balse kan wuxuu ogol yahay horizontal uu u dhaqaaqaa. Okay, laakiin verticalka wuu celinaa. Okay, horizontal uu dhaqaaqaa laakiin verticalka ma ogola oo verticalka wuu xanibaa. Okay, so marka waxaa dhici karta inay labadaba beamed noqdaan kaliya waxa kala duwanaan doonaan number of supported actions. Okay, sababtoo ah kan wuxuu celinaa aan ku dhahay vertical wuu celinaa sidoo kale horizontalkana wuu celinaa. Okay, horizontalkana wuu celinaa. So marka kanna hal uu celinaa hore u sheegnay. Okay, hal ayuu celinaa halka uu celinayna waa kan. So marka number of supports marka 3 uu noqonaa balse marka uu kan beamed noqdo 4 ayay noqonayaan. Okay, so marka ina ila fahantaa ayaa rajeynaya. So marka waxa waaye rotation kama celinayo oo waa dabeecad lagu yaqaano beamed iyo roller. Okay, marka la fiiriyo marka ama lagu base gareeyo culayska loo soo isticmaalo ama la soo dul saaray wuxuu celinaa shear iyo bending. Okay, laakiin goormuu celinaa waa haddii beamkaas loo design gareeyay ama sectionkiisa uu awood u leeyahay in culayska la soo saaro uu iska celiyo. hadduu culayska mar celin karo bendingkana wuu yaraanaa oo bendingka uu iska celin karaa. sidoo kale shear forceha supporta agtooda ka dhalanayo labadan force isdhaafeeda waaye supportahan forcehaas iyo forcehaas shearka ka dhexdhacayna wuu celinaa. waa haddii section iyo reinforcement ku filan oo iska celin kara awoodahaas la geliyo. Okay, nooca labaad marka maxaa la yiraahdaa continuous beam. Okay, continuous beam marka maxaa celiya waa kii hadda oo kale waa waxa hayo wax ka badan laba support waa ina meesha imaataa. So marka waana straight lagu dhaw waa toosan yahay ilaa wuxuu la toosan yahay dhirirka beamka uu leeyahay. Okay, marka beamkaasaas ayaa lagu baxshay continuous. marka isagana asla aragno beamka horta waa kana waa beam straight ah waxaana support gareeya wax ka badan laba support oo hadda midkan waxaan u jeedaa 4 support inuu leeyahay. Okay, waxay rabaan inay noqon karaan marka wada hinjiya noqon karaan ama beamed sidoo kale beamed iyo roller wada noqon karaan. Okay, so marka beamkaasna waa continuous spanadiisana wuxuu ka badan yahay 1 span. Okay, kii hore hal span u ahaa iyo laba support kanse waa laba support wax ka badan iyo laba support wax ka badan ayaa loo baahan yahay macnaha. Okay, 3 support oo kale marka maxaa meesha imaanaya laba span. Okay, so marka kaasna in isla fahana ayaa rajeynaya. nooca saddexaad marka maxaa la yiraahdaa cantilever beam. Okay, cantilever beamka waxaa laga support gareeyaa ama laga hayaa hal dhinac. Okay, dhinaca kalena is exposed beyond the wall or support. dhinaca kalena waxa uu ka baxsan yahay oo dhaafsiisan yahay supportihii ama shayga celin lahay wall ha noqdo ama column ha noqdo wuu ka baxsan yahay macnaha dhinacu u dheeriya macnaha dhinaca supporta uu ka hayo marka laga soo fiiriyo xoogaa banaanka ayuu soo jiraa. Okay, horena waa usoo baray marka slabka ka hadlayna nooca cantileverka ah macnaheedu marka waxaa waaye ku yiri tan hal dhinac in laga hayo oo fixed uu ka yahay dhinaca kalena waa free ama open uu ka yahay. Okay, waa ka furan yahay dhinacaas uu supporta kuma laha. So marka hadda isla aragno isagana waa kanaha cantilever waa kanaha. So marka maxaa waaye supporto dhinacan ku haystaa supportaha nooca aan ka hadlaynana waa fixed. supportaha noocan oo kale ah ma ogola shayga inuu vertical u dhaqaaqo sidoo kale ma ogola inuu horizontal u dhaqaaqo sidoo kalena ma ogola in wax moment ah meeshan uu yimaado. Okay, momentaha hadduu dhacayo
يعني meel oo distance u jiro ayuu ka dhacaa laakiin kama dhacayo meesha laga support garanayo wax moment ah uma ogola so marka beamka muxuu ku yiri hal dhinaca laga haya waa dhinaca supportaha dhinaca kalena wuxuu ku dhahay exposed macnaha beyond wuxuu ka fog yahay ama ka soo dheer yahay supportaha oo intaas ayuu u jiraa supportaha okay so marka beamka noocan oo kale ahna waxaa la yiraahdaa cantilever beam nooca afraad marka maxaa la yiraahdaa fixed beam beamkan fixedka waxaa lagu dhahaa labada dhinaca laga support gareeya okay waxaana support gareeya waana fixed support okay marka muxuu iska celinaa fixed supportaha rotation oo dhan ma ogola resisting ayuu ku sameynaa oo iska caabina waxaa loo yaqaanaa marka built in beam waa loo yaqaanaa beam oo yacni la isku dhisay waa macna waxa shayga mar hadduu isku shuban yahay oo hal mar shubkiisa la wada shubo aad uu isugu adag yahay waa shay fixed ah oo rigid ah okay so marka fixed endigaas oo supporta wuxuu soo saaraa moments ayuu soo saaraa other than reactions okay momenta ayuu sameynaa okay fixed beamka waa kan ahaa okay beamkan oo kale hadda markii uu sameynayo maxaa la dhahay bending moment at some distance markii laga soo bilaabo ayuu wuxuu soo sameynaya moment okay sidoo kale halkan waa saas waa laakiin meeshan wax rotation ah oo haba yaraatee imaan karo ma laha okay beamka noocan oo kale marka maxaa la rabaa maxaa shardi ah in labadiisa dhinacba ay noqdaan fixed okay so marka momentahana wuxuu imaanaa marka after some distance okay after some distance regionkan oo dhan hadda wax moment ah ma uu ogola okay marka waa qaabkaas oo kale waa fixed beamkan okay so marka nooca shanaad maxaa la yiraahdaa overhang beamka marka laba nooc noqon karaa single overhang iyo double overhang beam okay so marka marna wuxuu ku leeyahay markaas u fiirido ku leeyahay marka la fiiriyo oo la qiimeeyay waxa waa combination waa isku geynta simply supported beamki aad soo baratay iyo cantilever beamka aad soo baratay oo isku keena waa so marka wuxuu ku dhahay hal dhinac ama labada dhinac ayaa waxa overhang noqon overhang waxa la lahaa shay yacni dhinac aan laga hayno dhinac ka raaraca macnaha wax raaraca dhinac ka raaraca camal okay waa isla arkayna marka sawirka beamka marka waxa support gareeyo ku dhahay roller ayaa labada dhinacba ka hayo okay nooca beamkan oo kale ah wuxuu yacni wax ka dhaxlay macnaha oo waxaaba asaga dhanba waxaaba macnaha uu ka dhashayba labadan beam oo la isku geeyay hore warkaas noogu sheegay okay so marka overhangiga waa kan aha waxaa ujeedaa meeshaan laba supportiya haysanaa okay meeshaan laba supportiya ku haysanaa beamkeenina waa kan aha nooca ugu horeeda isla arkayna marka maxaa la yiraahdaa single overhang beam okay single marka maxaa loo dhahay labada dhinac hadda waa laga hayaa meeshaan overhangi ka sameynaa halka gees oo ka raaraca oo supportaha ka fog waa kaasa so marka qaybtan dhaxan haddaa fiiriso waa simply supportedkii ay xoogaa la mid yahay dhinacan haddaa fiirisana wuxuu la mid yahay cantileverki so marka that's why uu kuu lahay waa combination of simply supported and cantilever beam uu kuu dhahay waa single marka waxaa hal dhinac ayuu u raaracaa okay ama oo yacni hal dhinac ayaa usoo dheer yahay oo supportaha ka baxsan balse double markuu noqdo laba dhinac ayaa overhang ah okay laba dhinac ayaa raaraca okay labadii supportina waa kaasa so marka differenceahaas keliya ayaa u dhaxeeya